si weyn looga dareemayaa xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan magaalada Baydhabo qabanqaabada shirka golaha amniga oo isugu imaanayaan madaxda goboleedyada iyo kuwa qaranka oo hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana hoolka martida loogu talagalay in shirkaasi uu ka dhaco aad looga dareemayaa in maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu diyaarinayo iyo goobihii madaxda ay degi lahaayeen waxaana lagu wadaa shirkaasi in uu furmo maalinka Sabtida iyo wixii ka dambeeyay yimaadaan madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka daqiiqado ka hor maraan la hadlay afayeenka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Nuurdiin Gacmo waxa uu ii sheegay in Sabtida ay imaan doonaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka madaxda qarankana ay ku soo biiri doonaan shirkana suuragal ay tahay maalinka Axadda ama Isniinta soo socota si rasmi ah inuu u furmo wax badan ama dhowr jeer tiro waliba laba jeer uu sheegay inuu baaqday balse imika ay aad ugu rajayn in ay sida ugu dhaqsiyaha badan Baydhabo ay ku soo gaaraan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo kuwa qarankaba si shirkaasi dib u dhac saddexaad uusan ugu imaan isla markaana ugu dambeyn sida uu sheegay maalinka Isniinta ee soo socota uu kaga furmi lahaa magaalada Baydhabo maalmaha Axadda iyo Sabtidana ay madaxda soo gaaraan magaalada Baydhabo si isla markaasna shirka dib u dhac kale uusan ugu imaan waxa kale uu sheegay in ammaanka si weyn loo adkeenayo horeyba bishii barkeysneed Ramadaan inta loo galay ammaanka uu adkaa haddana la sii laabayo maadaama madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ay ku soo wajahan yihiin Baydhabo sidoo kale waxa uu sheegay goobihii ay degi lahaayeen martida la diyaariyay iyo hoolkii shirkaba marka waxa uu sheegay in ay ku rajo weyn yihiin in isbuucan soo socda waliba maalinka Isniinta waa carabka aad ugu adkeeyay inuu ka furmi doono Baydhabo shirka golaha amniga